runtii waxaan jeclaystay inaan si kooban uga hadlo arrinta la xiriirta eh, dilka eh, iyo jirdilka iyo tacadiyada iyo cadaabta iyo ciqaabta la isugu daray gabar yar oo maskiin oo agoon iyo yatiina sabriin ee ka dhacay galkacyo. Eh, dad badan waxaa laga yaabaa inay u arkayaan ama ay u fahmayaan inay tahay sabriin qofkii ugu horreeyey ee ku baxay gacanta islaanta dilaaga ah ee naxariista daran. runtiina markaad muuqaalada gabadha sabriina aad aragto waxaad dareemaysaa xitaa xabsiyada dunida ugu liita sida laysuguma ciqaabo. laakiin waxaad ogaanaysaan, waadna ogaan doontaan inta ay socoto maxkamadayntan, inta kiiskan hadba waa cusub uu u bariyo, waxaad ogaan doontaan hadba xog cusub oo la xidhiidha naagtan dilaaga. runtiina ma aha sabriin gabadhii ugu horreysay oo ay disho, mana ahan keliya naagta oromada way gubtay la leeyahay. gabadha kale iyana waa jirarweyne la yidhi inay dishay, sida la sheego ay u dhimatay. runtii dhibaato ay soo gaarsiisay intaa way ka badan yihiin. xitaa hadda waxaa shaki a jira odayga wiilka u sheegay inay luuqa ka heleen. xitaa waxaa jira tuhuna in wiilka ay wadatay gabar soomaaliyeed oo u shaqaynaysay, la dilayna oo gacanta naagta ay ku baxday. kadibna inta la yara suureeyey ay ballan qaadeen korriimada cunuga. laakiin ma hordhacayo, xogo badan ayaa soo bixi doona inta baaritaanada socdaan, maxkamadaynta socoto. waxaa isweydiinay ciqaabta intaa la eg gabar yaroo masaakiina oo hooyihii aabba aan u noolayn, oo ayaydii ay ku tiirsanaydna dhimatay, ninka awowga u ah islaanta dilaaga qaba markii uu guriga keenay, ilaa iyo heerkan ciqaaba inay mutaysato. cadaawadda intaa la eg ee loo qabay sabriin xaggay ka timid? naagtan dilaaga maxay sabriin ku maagaysay? okay, qaar waxaa loo dhigay marka dib loo egay muuqaalada laga helay iyada tilefoonadeeda ay duubtay, oo qaarkood aad dareemayso inay yihiin fariin ay qof kale usii gudbinayso. weliba inta ay gabadha dharka ka bixisay, timihiina ka xirtay, ay dhabar ilaa calool ilaa madax ilaa iyo garbo dhiicaan iyo dhiig u ka da'ayo iyo malax ay dareerayso, oo inta ay duubto ay leedahay wariyaa aniga been kuma sheekeeyo, waxaas ay ka dareerayaan dheecaana waad aragtaa. cid kale looma dirayo. muuqaalka waxaa loo direeyey waa ninkeedana wuxuu sheegay 2 bisha inay kala tageen. waayo haddayba damacday markaa ninka furay inay iyadu ka aargoosato, sabriin awow u yahay de waa meel fog. waayo hooyadeed asaga walaalkii ayaa wuxuu dhalay gabadha la dilay miskiinta agoonta iyo yatiimta ah hooyadeed. okay, marka sabriin awow buu yahay. haddayba rabto in ninkeedaa furay ama dalaaqay ee ka argoosato, waxayba haysaa ilmihii isaga dhiiggiisa laga beero oo iyadu dhashay. maxay ayaga oga jiri waay ayaga intay garaacda ay u muujin weysay? sababtoo ayadaa dhashay ilmahan, ma rabto inay dhibaatayso. sidoo kale haddii ilmahan ay u dhashay ay dhibaatayso, waa iyadu waxaa laga yaabaa ninkan inay rajay ay ka damacsanayd. waxaa laga yaabaa in ninkani uu galo colaad iyo cara aad u badan inuu galo iyo dagaal kale marka ilmihiisii uu dhalay la dhibaatayo. sidaa darteed sabriin waxay noqotay kubad ama garoon lagu ciyaaray noqotay. islaantana way dishaa, way dhibaataysaa, way jarjartaa. ninkana loo duubaa, waa loo diraa, isagana wuu furaa, wuu daawadaa, wuu iska xiraa.
waa muddo 2 bilood iyo ka badan ayaa loo dirayey gabadha masaakiinta marna fig loo xirayo mar la ceejinayo mar la jarjarayo nolol xayatul kalaba inta la geliyo ayadoo ay naagtu rabto inay ninku xanuuj isna wuxuu ahaa careless runtiina qof waalida way adag tahay ilaa heerka ilma uu waalid u yahay weliba dee awownimadu wax sahlan maaha marar qaar aabbanimadu way ka damiir badan tahay so maxaa keenay awowgan inuu damiin noqdo inuusan damiir lahayn maadaama gabadhan ay mas-uuliyaddiisa ku timid gurigan ma wuxuu awoodi waayey inuu guriga yimaado gabadha yar gacanta intuu ka qabto uu guri kala geeyo ama eheladii kuwii la dhashay uu u geeyo ama cid kale ula wadaago ma awoodi waayin laakiin isaga umaba arkaynba xanuun kuma hayn wax xanuuna oo ay ku haysay ma jirto dilka lagu hayay gabadha waxaana ka dhaba sida uu leeyahay aniga wax yar baan guriga joogaayo dee marmarna gabdha la yara edbiyo waan arkayay runtii markii anigu aan daawaday muuqaalkiisa maxkamadda qiimeeyey kelmadaha uu ku hadlay iyo dhibta meesha taalla waxaa anigu si cad igu soo baxday ugu yaraan in ninkaasi uu isticmaalo drugs ama kaniiniya inuu isticmaalo in runtii uusan ahayn qof nadiifa inuusan ahayn waayo isaga ayaa keenay kawaanka lagu qashay Sabriin wuuna ogaa in gabadhaas maalin bacad la jarayo wuuna la socday ayaduna mar walba oo ay muuqaal u dirto dhibaato gabadha ku saabsanaa oo uu ka soo jawaabi waayo ama dareen adag ay ka heli weyso waxay sii laba jibaaraysay ciqaabta ay gabadha yar ku hayso ilaa markii dambe ay runtii ku dishay ceejii waxaadna ogaanaysaan waa laga yaabaa qof aan weligii waxba dilin dee intuu qori qaato wax dilo oo markii ugu horreysay tahay wayna dhacdaa inta badan markii ugu horreysay qof intuu tuuri la boodo qof ay dee silan filan xitaa ay ku gasho laakiin haddaad aragto dilka ceejida ah waxaa fulin kara keliya qof dilaa qabiir abaa fulin karaa qof waxaa fulin karaa runtii adkaysan kara inta qofka nafta ay dhibayso fiiqda uu ku hayo ilaa neefta u dambaysa qofka bini'aadamka ay ka baxayso ayuu qofkani u dulqaadan karaa taa macnaheedu waxa weeyaan ceeji waxa wax ku dili karaa qof 1 2 3 4 5 horay u soo dilay oo dilka qabiir ku ah qof bilow ah ama si kaliis wax uga dhaceen neeva ma dhici karta taa inuu ceeji wax ku dilo waayo qofku damiir buu leeyahay weligii wax ma dilin markuu qofkani neefta ku celiyo fiixdaas qofka leeyahay ayaa laga yaabaa inuu argagaxo uu ka foqo ka duulo laakiin qofka ku simay ilaa ay dhimato haddana damacday xitaa meydkii in la sii qariyo oo ilaa iyo maanta damiirkeeda uu siinaya xitaa inaanay qiran dembiga ilaahayna og yahay iyaduna ay og tahay ee gabadha masaakiinta agoonta ay ku baxday taa wataa waxaan rabaa markaa inaan idinla soo wadaago macluumaad laga yaabee inaynu wada helnay laakiin dhinacyada aniga aan ka eegay idinku inaydan ka eegin marka qaybta labaad waxaan ku falanqayn doonaa waxyaabo badan oo caddayna oo ah in naagtan ay dilaa qabiira tahay oo wax badan oo ka badan weliba 3 iyo 4 in ka badan inay soo dishay ilmaha yare la sheegay in luuqa laga helay inuu jiro shaki ah in hooyadiina waddadii Sabriin ay hore u martay waxaan kaloo idinla soo wadaagaya sababta keentay awowgii dhammaa ee gabadhana inuu ku daawado dhibta kuna simo ilaa naagtaasi ay ka dhigato derbi ama dhagax ay ku carabeesho qof bini'aadama oo haddana agoonoo raja oo gurigiisa joogtay isaga ku dhisaan rabaa inaan gudaha u sii galo wax badan sababtoo ah mas-uuliyadda koowaad 2 3 isagaa gabay waayo naag bahal ah ayuu gabar masaakiina oo aan awoodna ku dhamayn weliba naagtu keligeed maaha ciidan bay leedahay oo la qaqabanaya la jiijiidaya la meelmarinaya kuwaasoo ah ciidan ayadaad ugu dhow oo u tababaran inay ciqaabtani geystaan una arkaan wax aan
dee wax weyn ahayn marka qaybta labaad ayaan ku egi doonaa hadduu ilaa idhaah